kormeerkan ay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland ugu kuurgaliyay dayactir ballaaran oo laga wado wadada isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera taasi oo ah wadada halbowlaha oo ah isku socodka ganacsiga Soomaaliland oo isticmaalaan gaadiid aad u tiro badan waxaana wadadaasi ka muuqan jiray burbur laxaad leh oo sababi jiray shil keena khasaare nafeed wadadan ayaa waxa ka muuqda hadda dayactir aad u ballaaran oo lagu sameeyay taasi oo si weyn loo dareemayo waxaana si aad loo xidhay laagaha iyo dooxyada kuwaas oo ku soo faruuri jiray daadad xilliyada roobaadka waqtiyadii hore wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa si mug leh uga hadlay dayactirka ballaaran ay ka wadaan wadadaasi wadadii Berbera iyo Hargeysa meel fiican marayso waxa weeye hadda halkan aan joognaa waa shaqada lagtiisa xagga hore waxa weeye waxa ka socda oo insha Allah taala xagga hore ka socda meesha la yiraahdo la faruu ka socda shaqadii kala ka socota si wacan bay u socotaa oo arki karaysan qof walba war karay halka la qabtay qorshuhu wuxuu yahay inaynu wadadan Hargeysa iyo Berbera dhamaystiro insha Allah taala oo ka wada dhigno wada waxa weeye tayo leh oo insha Allah taala gaadiidka iyo dadkuba ku raystaan oo ku nastaan inaynu ka dhigno ma kaliya inaan yani inta godadka buuxinayno kaliya waxaan isku daynaa sida ugu fiican ugu macquulsan aanu qaban karin awooduna noo saamaxdo inaan Hargeysa iyo Berbera wadadan u dhaxaysa ku dhamaystiro kadibna wadooyinka kale ugu gudubno dhamaantood wada walba waanu maintenance oo wax gaadheen waanu insha Allah taala gaadsiin doona maintenance la maintain gareeyo ama waxa weeye dayactir lagu sameeyo wadooyinka cusbaana way inoo socdaan laakiin maanta hawshan waa hawshii dayactirka wadooyinka jiray ee hore waxa qorshe noogu jirta marka aan sameeyno dayactirka guudkeeda dayactiro in lagu dhigo liidadkii in hareeraha laga xidho oo daadkii laga xidho waxa hadda arkaysaan indhiina ku arkaysaan oo waxa weeye bulshada reer Soomaaliland ee daawanaysan ay u tabin kartaan in meelaha biyo xidhanada ama meelihii biyuhu ay ka soo galayeen waxa weeye wadada ay ka damage gareynayeen cagafyadii barbar socda si ay biyaha uga xidhaan oo uga awdaan meelaha dhudhubaa uga duwan biyaha oo u duwan meelihii loogu tala galay ay ka gudbi lahaayeen biyuhu sidoo kale darawallada isticmaala wadadaasi iyo dadweynaha rakaabka ah ee iskaga kala goosho wadadaasi ayaa si weyn u soo dhaweeyay taasi ay dhibaato weyn ku qabeen xilliga hore waxaan dadka macaamilo wadadan ee had iyo jeer mara sida loo sameeyay waa la dhacday aad bay u wanaagsan tahay wadooyinka caalamka ayaad moodaa marba hobas baa loo goy jiray intii hore hadda laakiin waanu ka inta ay imika la soo sameeyay waanu ka nasanay loo wadayo way wanaagsan tahay waana shaqo xalaal weeyaan gaadiidka iyo dadka labadaba dhaqaalahooda aad buu ugu fiicnaanayaa dadkuna ku nabad galayaan dhaqaaluhuna aad buu ugu wanaagsananayaa gaadiidka oo burbur yeelan maayaan u dhaxaysa magaalada Berbera iyo magaalada Hargeysa hadii aan ka waramo boqolkiiba 95 waanu ku faraxnay wax ka qabadkeeda aad iyo aadna waxa laga yaabaa dadweynaha maraya iyo shacabkuba inay ugu diirsadaan ay ku raystaan oo dhiigii dadka faraha badnaaya habeen iyo maalin tobanka baabuurtu ay barkanaysay markay boolaha ku daadato waxa laga yaabaa inay halka ku badbaadaan dadweynihii marayay wadada dayactirkan ee wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland oo maamusha hay'adda wadooyinku ay ka wado wadooyinka waaweyn ee gobolada Soomaaliland ayaa sahli doona in si fudud la iskaga gudbo guud ahaanba deegaanada Soomaaliland Mukhtar Ismaaciil Hargeysa.